dagaal u dhexeeyay ciidamo ka wada tirsan militariga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka dhacay xaafado ka tirsan degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir kaasoo socday muddo ku dhow 2 saacadood. dagaalkan oo bilowday barqadii ayaa soo gaaray duhurnimadii maanta iyadoo ciidanka dagaalamay ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala duwan waxaana degmooyin dhowr ah laga maqlay dhawaaqa rasaas xoog leh. ciidanka dagaalamay oo u abaabulnaa habbeeleed ayaa waxaa kala hogaaminayay taliye Cismaan Xaadoole iyo sarkaal kale oo la xusay inuu ka tirsan yahay ciidanka canshuurta qaada ee loo yaqaan minashiibiyada, wuxuuna si gaar ah uga dhacay xaafado ku dhow Kawaan Bari ee Kaaraan. khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dagaalkaas oo soo kala gaaray labada dhinac, waxaana ku geeriyooday 10 ruux halka tiro intaas ka badan ay dhaawacyo soo gaareen kuwaasi oo la geeyay xarumo caafimaad. dad nala soo xiriiray ayaa u sheegay in dagaalkan uu salka ku hayay muran dhuleed oo u dhaxeeyay saraakiil ciidan. dhulka la isku hayay ayaa ku yaala agagaarka Mirnaayada iyo Kawaan Bari. taliska ciidanka militari dowladda ayaa weli wax war ah ka soo saarin dagaalkii ka dhacay taliska ciidanka militariga dowladda ayaa weli wax war ah ka soo saarin dagaalkii dhacay oo saacado qaatay, waxaana taliska lagu eedeeyay inuu ku fashilmay xakameynta ciidanka u abaabulan habkabeeleed iyadoo weliba lagu jiro xaalad kala guur ah oo jahwareer siyaasadeed uu dalku ka jiro.